madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay la socdaan saraakiil ciidan ayaa maanta kormeeray xarunta tababarka ee General Gordon oo ay dowladda Imaaraadka ku tababarto ciidamada xoogga Soomaaliya. Madaxweynaha oo la kulmay ciidamada commandoska oo tababarka uga socdo xaruntaasi isagoo ku dhiirigeliyay in ay qaranka u shaqeeyaan sidoo kalena u mahadceliyay saraakiisha dowladda Imaaraadka ee tababarka siinaya ciidamada Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo oo khudbad ka horjeediyay ciidanka cusub ee tababarka ku jira ayaa waxa uu kula dardaarmay inay u shaqeeyaan qaranka oo ay badbaadiyaan shacabka Soomaaliyeed. وأمسكنا ومبدأ وكبر وهيسو ونفسه ومراي وهيسو ورأي عم جمعان وكل شيء إليه خاصة أبوه رئيس وحيد وطنينا يبقى الجزء ولو هي أطيع بالجنوب وأن بالجنوب هي الكلمة سيف أنه إدفاعية إلى هاي ولا قولنا وعيد فاعل ضرب قولنا تاني وعيد فاعل ضرب قولنا تاني وعيد فاعل بنت قولنا تاني وعيد فاعل إلى تاني دولنا مركزي إلى كاسي أفضل كاسولية إلى تاني معايا إلى أمسية يكون كلكم ونفتي سقوه انتفاع قانون الصومالي وماشي كلهم يسوي وهنقول على الحقيقة قال كل واحد بينه قف وكل بينه قوس وكل بينه قبيل قالوا وحق حصلون سيدا ماشي نقول هذه ماشي عن إسرائيل سقف إسرائيل يدوش ماشي عن سوي معك حيري وهقول عيسى مرحبا وهقول عيسى فوق كل عين لا بفرض كمان marka qaanunku asaas waxa ku hoosjira qofkii waxa ku hoosjira qoyskii waxa ku hoosjira qabiilkii marka waxa loo baahan yahay inaan isla qaanunimada marka taasna waxay ka qaadan wadanimada qofku aaminsan yahay kow waxa uu isaan inay tahay qalab talabaad diinta iyo dalka oo qayb ka ah qaanunimada laftigeeda maxaa yeelay inaan difaacan diinteena weye qoladaan diinteena eegayay oo ka dhigay diinta islaamka واحد وحصوه هديه بديه أنا كهر كمان ودين كنا نوعي ودين ودين فساحة والاستحالة ومعسل ومحبر على بيسو وأمان وي مركزيا بتاع الدين كنا وقيم كمية وضريات نفسية إلى الدفاع عن الضغط كنا شعب حاليا بفعله وقيم كمية وضريات نفسية ومحيطها إلى جعلاته قف واقع الصوماليين والفقهاء القليل والروح الحي وفتح على الصوماليين والروح بقى كله أكوف عنكته أوركته قفك صوت الصوماليين وهو قال يفهم على بشر صحة الوالد أنا وأظهرين الدنيا حي المرء الصومالي waxaan u baahan yahay Soomaaliyeed inaad qaadato oo aad ilaashato oo aad difaacdo warshadadeeda way waday kamida wadanimada inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa maanta xirnaa waxaana la sheegay in loo xiray socdaalka madaxweynaha Libaan Cali Guuleed Gada Times magaalada Muqdisho.